madaxweynaha dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo boqosho ku jooga dalkaasi Turkiga ayaa maanta ka qayb galay cilmiyeed ay qabatay hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu yahay Ankara maxadka siyaasadda dhaqaalaha cilmi baarista bulshada iskaashiga caalamiga ah. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku bilaabay hadalkiisa iskaashiga Ankara iyo Muqdisho waa mid aad u wanaagsan oo sii kordhaya maalin iyo habeen ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh salaasadii maanta isagoo ka hadlay dood cilmiyeed loogu magac daray faa'iidooyinka iskaashiga Turkiga iyo Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri faa'iidooyinka muhiimka ah ee xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waa mid xiriir xoogan oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed iyo iskaashiga dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah. waxa kale oo uu sheegay in xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga uu soo jiray qarniyo oo badan isla markaasina yahay mid ku dhisan ixtiraam iyo wada shaqayn, isagoo intaas ku daray in caalamka oo dhan ay la yaabeen markii uu madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu booqasho ku yimid Soomaaliya sanadkii 2011 xilligaas oo ay Muqdisho ka jirtay xaalad aad u daran oo bini'aadanimo. kulan kasta oo uu la yeesho Erdogan madaxda dowladda Turkiga, xubnaha bulshada rayidka ah iyo ganacsatada Soomaaliya waxa loo arkaa wax badan oo fursaduna ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dood cilmiyeedkaasi ka qayb galay hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu yahay Ankara mu'asasada dhaqaalaha siyaasadda iyo cilmi baarista bulshada. ma ahan oo kaliya in arrimaha bini'aadanimo loo kaxeeyo tamarta Turkiga si ay u taageeraan Soomaaliya, laakiin waa iimaan yaqiin leh oo la xiriira dowladda Turkiga iyo dadka in ay taageeraan Soomaaliya ayuu raaci. Soomaaliya waxay taageero ka helaysaa dhammaan caalamka 20 sano ee la soo dhaafay, laakiin taageerada Turkigu waa mid gaar ah oo ka duwan taasi. sidaas waxa yiri Xasan Sheekh Maxamuud isagoo hadalkiisa si wata ayuu intaas ku daray in diiradda la saaro qaab dhismeedka dowladnimo ee Soomaaliya ayaa muddo 15 sano la daala dhacaysa ururka Al-Qaacida xiriirka la leh Al-Shabaab maadaama ay dhibaato u geystaan dad badan oo ku nool dalalka ku yaala Geeska Afrika. madaxweynaha uu hadalkiisa sii wata ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda uu amniga Soomaaliya u leeyahay, isagoo oo yiri waxaan rabnaa inaan xoogga saarno dhismaha haykalka dowladnimo iyo nidaamka Soomaaliya si ay u noqdaan loo dhan yahay oo daahfuran lagana faa'iideysto intii suurtagal ahaa uu dalkeenu u noqdo mid midho dhal leh oo xasiloon isla markaasina horumar ku waara. dadka Soomaaliyeed ayuu u dhaxaad gelinta aragtidan waxaan ognahay buu yiri in sidoo kale loo maareeyo in ay samayso culayska culus ee mustaqbalkooda. aragtidani madaxweyne Xasan Sheekh isagoo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu yiri halkii ay ka ahaan lahayd tartan isku duubnida bulshada kalsoonida shacabka ee hay'adaha qaranka ayaa dhici doonta. leenahay ajenda dib u heshiisiineed ee bulsho oo lagu heshiisinayo bulshadeena meel kasta oo ay joogaanba. booqasho rasmi ah ku tag madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah ku tagay dalkaasi Turkiga isagoo ku eegi maanta oo Salaaso ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii labaad loo doortay madaxweynaha Soomaaliya waxay booqashadani bilow u tahay tan iyo intii xilka uu la wareegay bishii May sanadkan 2022 isagoo hore u soo noqday madaxweynaha Soomaaliya intii u dhaxaysay 2012 iyo 17. barnaamijkaasi la socodsiinayaan Cabdisamad Yuusuf tan inta mar kale wada ku kulmi doono waan idin leeyahay lead and promote the common interest